أحمد محمود جرف أو يسوع كمدة لأن يرى Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Italiya gaar ahaan agaarka xarada Kasabili ee gobolka Sicily ayaa inoo suura gashay waraysi dhinacyo badan taabanaya Axmed inaan la yeelno su'aasha ugu horeyso aniga aan weydiiyay Axmed ayaa waxay ahayd bal markuu ugu horeyso inuu inooga waramo muddada uu halkaan uu ku sugan yahay iyo waxyaalaha uu halkaan uu ka qabto hay Axmed صاحب أنا وعنكو سجنا ودن كان تليانيجا مدة 4 بلود أو 6 بلود أيام كسجنا هاي مركان كام كان كسب بعي لبعض عن لكل مع كمية شغلان هو الآن أيضا تاس يصير درتاي أو قبو جرا أوجد مال ولي بعدات تكتني عشان دورا هذه سنة تليانيجا يقول جواب أيان ينتل لبورة marka meeshani maxaad ka qabataa xilligaani maxaa hoolaad ka haysaa yaa ku keenay yaa ku dajiyay yaa ka warqaba imisa qofna ayaad tahin oo meeshan aad ku nooshiin wallahi meesha hadda waxaan ku joognaa dad gaaraya 7 ruux ayaan ku joognaa Soomaali badan ayaa joogu jirtay waa iskaga amba baxeen oo waxay tageen wadamada Norway iyo Holland ay isku dhiibeen anigana meesha waxa igu reebay qof waliba waa dadkii saaxiibada oo Holland iyo Norway isku dhiibay qaarkood waa la keenay wadanka Talyaaniga marka adiga sababta meeshan oo kugu reebtay Holland iyo Norway meelahaas kale u soo fiirin weysid maxay tahay oo maxay kula tahay waxa cad Talyaaniga fariisa Soomaalida waxay ictiqaadsan in la iska dhaqi karo ma aha in wax la iska dhaqi karo oo faraha qof waliba faraheeda markii laga qaado computerkii way ka soo baxayaan sidaas awgeed marka waxaan isleeyahay in meeshan shaqo wadanka Talyaaniga ninkii shaqo ka helo lacagtiisa aad ay ugu dhacaysaa waxaan rajaynayaa inaan iskaga lacagtan ku ama bixi lahayn inaan meeshan ka shaqeeyo marka maadaama meel walbo aad tagtid oo farihii laga helay aad aaminsantahay waxaad go'aansatay in meeshan aad iska shaqeysid oo iska sii joogtid meesha inaan shaqo ka sii xaqiijiyo oo markaan shaqada aan ka helana markaas saan waan bixi lahaa wadankan amba wadiga aan u naqal lahay amba wadankan dhaamo oo la soo celinaynin aan saan ku tagi lahay waxa inoo sheegtay 7 qof inaad tiin meeshan aad ku nooshiin dhulkaani banaanka ah ee guriyaan lahayn oo buushashka oo ku dhisan dhulkaani yaa idin siiyay yaa idin ogolaaday marka yaa idin caawiya hadda cidna meeshan oo nacaawiso meeshan waxa jiro nin oo meeshan joogo oo magaciisa la yiraahdo magaciisa baadari ayaa la yiraahdaa oo dhiib raashinka aan meesha ku cun lahayn ayuu dhiibaa marka ninkaasi muxuu qabtaa maaragtay raashinka cunaysaan marka uu idin siiyo wax dukumeenti oo idin siiyo ama shaqo kale oo asiga oo wax oo idin sameey ma jirmiya wax shaqo oo noo qabto male si joornada dukumeentiga ayuu naga qoraa ka bacdigeed wuxuu siyaa raashinkan cun lahayn raashinku idin siinayo isbuuci ma yahay raashin idin ku filan raashinka waa nagu filan aad buu nagu filan laakiin waxa baksiixum darxumada meesha taalo aqalada la seexanayo inta la seexana aqalada la seexanayo waa xagee qaab ceenkee ayaa maaragtay meeshaani loo seexdaa bal dhageystayaal badan iyo daawadayaal badan ayaa waxay rabaan inay ogaadaan qaabka aad u nooshiin iyo guriyaha aad seexataan qaabka ay yihiin aqalada laga sheekay doona aqalada waa kuwan abkan ayaa loogu seexdaa aqalada waa kuwan sida ay muuqato albaab ma lahan meeshan yariiska ee duleelka ee adiga aad haysid meeshaasi ma laga galaa halka ayaa laga galaa marka qaab ceenka ayaa loo galaa waxa muuqata qolkoo dhan istaagaad inuu san leekeen qaab ceenka ayaa loo seexda qaab ceenka ayaa loo galaa oo loo seexda bal mana tusi kartaa qaabkii la gali tago qoftu markay gali tagto sidaan bay u galaysaa markay gali tagtana sidaan bay u galaysaa markay soo bixi tagtana saan bay ugu soo bixi kartaa ma weey istaag moonan u gali karto marka qolalkaani yaa idin dhisay anaga baa dhisan qolalkaani marka qabowga ma yahay mid idin ka celinaa iyo roobabka inta badan mararka qaarkood ka day Italy ee aan la socno wallahi hada qabow wuxuu celinayaa hada uma jeedno qabowga waxa nafta baan iskaga sheegaynaa mooyee qabow wuxuu ceeshan uma jeedno waxaan hada meel kale aan aadayna ma leeyahay marka dawladda Itaaliya ma ka codsateen guriyo iyo meel hooy ah iyo nolol midan ka wanaagsan ma ka codsateen oo isku daydeen mise wali isku madayn waan ka codsanay waana had kulleeto waxa ay noo qabanayaan uma jeedno Talyaaniga waxay noo qabanayaan marka maadaama aad ka codsateen oo aad inoo sheegtay in wali aan waxba la idin qaban roobabkana oo san ahayn meel oo hooygaani hadda
uusan idinka celinaynin ma waxaad weli qorsheynaysaan in meeshan aad sii deganaataan oo aad ku sii noolaataan horta meeshaan aniga waxaan u joogo waxa waaye nin aad u wareega baan nahay meel waliba sidii tabliiq camal guuro markuu meel dego marka meeshaan aniga shaqo baan ku xaqiijiyo haday markaa shaqadeedu ii soo baxdo waxaan rajeynayaa inaan markaas iskaga sii ama baxo markaa shaqadeedu aan ku dhaqaaqo marka shaqo ayaa rajeynaysaa rajo ayaa leedahay ilaa shaqada aad ka helaysid waxaad go'aansatay in meeshan aad sii joogtid saas baan rajeynaya marka aaway asxaabta kale hadda oo meeshan oo kula degan waxaa kamid ah wiilkan baa kamid ah halkan degan oo hadda maqan asagana magaalada jooga ma jiraa Soomaali kale oo booqasho idin ku timaado oo meeshan oo idin soo booqato marka qaarkood waxaa dhacda Soomaali kale inay timaado xataa oo anaka nagu dhacay inaan banaanka seexano oo martidin ah xaggee seexanay idinkuna xaggee seexanaysiin ayki booskan seexanayna baan u banaynayna anaka markaas ayakana banaanka iska seexanayna marka hadda marka laga reebo ma aragtay martida idin imaanayso iyo qaabka kale idinka aad ku nooshiin idinku qudhiina masku tashateen oo muku tala jirtaan in nolosha nolol ka duwan aad raadisaan oo shaqadoon ma tiina shaqadu ma raadisaan mise inta badan Soomaalidu waxa lagu eedeeyaa inaysan iyagu shaqo rabin oo ma aragtay ay jiif iyo cuno oo kaliya ay doonayaan oo noloshan aad ku qanacsantiin saaxiibo horta Talyaaniga dadkii Talyaaniga u dhashtay ayaaba shaqo weysan dadkii ana ko soo guluutiin shaqadan waxa waaye Talyaani ay ka baad tuugaab nin kastana waxa waaye anaka meel aniga naftigay aan ka daan wareysiga meeshan ku istaagsan Talyaaniga meel aan shaqo u tagin male qaarkood waxaan arkaa dad anaka lamid oo Talyaani rasmi u dhashtay oo gudaarada seexanaya marka imisa magaalo ayaa tagtay oo shaqo ka raadisay ma jira shaqo meel aad ka soo heshay wallahi dhowr mar ayaa aniga dukumiintigayga laga qaaday ayaa magac laga qortay telefoon laga qortay ilaa haddana wax isoo wacmaan markid boqolaal Soomaali ah oo saaxiibada ah ama Soomaali kale ah ayaa hadda waxay iyagu diyaar u yihiin inay soo tahriibaan oo safarka dhirka badan saxarihii aad ogeed badii iyo dhibaatadii xabsiyadii inay soo maraan oo ay taaliimaadaan nolosha maanta adiga aad ku nooshay adiga iyo asxaabta kalena waa aad u jeedaa oo waa ay ku muuqataa sideed u aragtaa raggaas cusub ee hadda soo tahriibaya ee qorsheynaya inay Itaaliya u soo tahriibaan aniga raggaas horta waxa dadka Soomaalida waxay ay moodaan ninka doo wadan kale oo Yurubta kamid ah markuu joogo inuu nolol fiican haysto ayay moodaan waxaan aniga kula tali lahay inaysan intuu soo tahriibina wadankan Talyaaniga soo aadi lahaayeen inay iska aadaan wadamada kale oo Carabta sida Sacuudi Carabiga oo kale maxaa ku jaban hadii oo dalkoodii hooyo iska joogaan oo iska shaqeystaan wadanka wala jooga hadii leeyahay wadanka dhibaatada ka taagan nin kastana wuxuu raadinayaa nolol marka ninkii inuu soo baxarabayo wadamada Carabta inuu iskaga taariibayo kula tali lahayn aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ka mid ahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo degan agagaarka xarada Casabili ee gobolka Sicilia oo dalka Itaaliya tahriib ku soo galay una waramayay barnaamijka S24 ee safarka tahriibka